maantay oo taariikhdu tahay 29kii Juulaay 2020 waxaa halkan ka bilaabatay dufcaddii afraad ee dhismaha wadada wadaagsin oo u dhaxaysa Garacad iyo Galkacyo qaybteedii afraad hadda maantay waxaanu dufcaddii afraad ka bilownay Mareer iyo Jariiman dhexdooda 17 kiiloomitir oo ka qabya ahaa ayaan rabnaa inaanu shaqadaas haddii idinka Ilaahay ka dhigo 3 maalmood bay maalinta saddexaad bay hadda socotaa waxa Ilaahay mahadiisa oo halkaan uga mahad celinayaa Ilaahay noo kasay shaqadan naguna dhureeyay naguna dhaqaajiyay baan ku mahad celinaynaa waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa 3 shirkadood baa halkaan iska kaashanaya iyo shacabka degmada Jariiban shirkadda koowaad oo qalabkan hadda shaqaynaya oo culus oo wax jabinaya waxna qaadaya keentay waa shirkadda TTN oo shirkaddii dhismaha dekadda kambaniga qandaraasi ku qaatay shirkadda wadaagsan maamulkeeda iyo boorkeeda iyo hantiilayaasheeda oo ku deeqay wixii logistic oo ku baxaya meeshaas iyo qalabkii dawladda oo hay'adda neesho oo iyaguna inta hadda shaqaynaysa ay ka qayb qaadanayso dhigid iyo kala bixinba iyo shaqaalaheediiba hawshaasi marka waxaan jecel lahay shaqada maanta la qabanayo 17 kiiloomitir inay noqoto wada standard oo ka fiican intii hore laayirka la saarayo toosinteeda iyo garaacideedaba inay noqoto haddii rabbiga in hamiga kale oo nagu jira wuxuu yahay inaanu markii taa la dhameeyo haddii aan ilaa xaqi laga waayin asii qalabkan dawladdu joogo dhaqaale loo helayo in dib loogu laabto wadada intii la soo maray ilaa Galdagob laga galayo intaas halkaas aan uga baxayaa qodobka kale oo aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland iyo mid federaalba u sheego waxa weeye go'aan kale oo waxaan qaadanay haddaan nahay shirkadda wadaagsan oo dhisaysa wadada Garacad go'aanka boorkeeda iyo hantiilayaasheeduba qaateen waxa weeye in wadada lagu sameeyo qiimayn dhammaystiran wadada isku xidha Galdagob iyo Garacad oo 302 kiiloomitir in lagu sameeyo qiimayn dhammaystiran oo cid waliba loo bandhigi karo haday hay'ad tahay iyo haday dawlad tahayba ayadana injineeradii ka shaqayn lahaa ayaa hadda waxa weeye aanu tandarkeedii bixinay cidii ku guuleysata oo shaqada qaban ka dhayaana qabanaysa si ay u noqoto wadadaani maalin waliba kabkab la saaro iyo xoogaa yar oo arrakaawo looga gudbo oo wada standard oo wadooyinka Soomaaliya ugu muhiimsan ay noqoto waxaan rabaa fursadan aan uga faa'iideysto oo soo jeediyo madaxda dawladda Puntland in wadadaas ay tahay wadada ugu muhiimsan ee gobolada Puntland madha ama kuwa Soomaaliya oo markii laga reebo wadada arxaanka oo isku xidha dalka geeska gees oo laamiga wadooyinka kale oo crosska oo gooyo waa wadada ugu muhiimsan dhererkeedu waa 302 kiiloomitir waxa ay madhaa waxa weeye 4 degmo oo waaweyn iyo 37 tuulo iyo 92 tuulo oo geesaha ka oo si dadban uga faa'iideysay dadkii deganaa waxaan leenahay wadadaas arrakaawadeedii waa diyaarinay waa sameynay feasibility standardeedii ama qiimaynteeda dhamaystirnayna waa diyaarinaynaa wixii inta ka dambeeya dawladaha jira kuwa federaalka kuwa Puntland hay'adaha caalamiga waxaan leenahay wadada dhismaheeda iyo dhamaystirkeeda ayaguna cid waliba ku dhiirato hana u diyaar garoodo hana la dhamaystiro
waxaan kale oo halkan baaq uga dirayaa dadyowga samaha jecel oo wadadan ka soo shaqayn jiray oo lacagta ku bixiyay oo qayb waliba soo dhisay hawlka madaalooyin maantana waa hogadii waa bilaabatay shaqadii dufcadeeda afraad baa bilaabatay tan waa dhimaystirmaysaa laayarka dambe la saarayana waxaan rabnaa inaad u diyaar garowdaan cid waliba oo qayb ka qaadatayna waxaan leenahay xooggiina iyo xoolihiina ma Allah barakeeyo degmada Jariiban deegaanka Garacad tuulooyinkeeda waxaan leenahay idinkuna biyihii hilibkii taageeradii iyo idinkana intaas la idinka rabaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay baa mahad leh waxaa meesha iska kaashanaya kambaniga wadaagsan iyo TTN oo ah kambaniga dhisaya dekada oo Turkiga iyo qalabkii meesha oo awal hore u shaqaynayay oo dawladdu lahayd intaas iska kaashanaya iyo dadweynaha ayaguna wixii tabartooda haday hilib tahay iyo haday wax kala tahayba ka qayb qaadanaya aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadinaynaa dadka hawsha qabanayana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xasanaad iyo ajar ka siiyo inta kale oo hadda aan maanta halkan diyaarka ku ahayn oo maqlaysana waxaan u soo jeedinaynaa inay ka soo qayb qaataan sida hore uga qayb qaadan jireen waa sadaqa jaariya waa dalkaagii waa dhisanaysid wadadu waa halbowlihii isku xiraayay magaalooyinka marka haddii halbowluhu kaa go'an yahay waxba iskuba kaa xirmayaanin qof kasta oo waxaan leenahay ama sadaqa bixinaya ama haddii waalidkiis maaragtay u bixinaya maaragtay wax u bixinaya ama asagu shakhsiyan damiirkiisa iyo dadnimadiisa ay tahay inuu dalkiisa ka qayb qaato horumarkiisa inay ka soo qayb galaan dibad iyo gudaba ayaan u soo jeedinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin rag badan baa iga dambayn doona dadka hadda kabaryadan shaqadan qabanayana waxaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ayaga oo dalkii u shaqaynaya ayay haddana inay wadadii ay furaan oo ka shaqeeyaan ayay mar labaad maaragtay isu xil saareen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maanta waxaanu joognaa meeshii la oran jiray tubaal la cuna hareeriga aagiisii oo aan waddadii ka bilownay ilaahay mahaddiis xurkuna waa da'ayaa cadar iyo qabow iyo roobna ilaahay baan ka rajaynaynaa waana nagu da'ayaa hadda waddadii baan bilownay dhowr iyo 10 kiiloomitir oo ka harsanaa baan hadda maanta dib loo bilaabay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo waxaa waddada bilaabay oo isku xilqaamay shirkadda wadaagsin oo wax badan soo qabatay aad bay mahadsantahay ilaahay baa mahad iska leh waxaa kaloo ayaguna qalabkii noogu tabarucay kambaniga la yidhaahdo TTN oo dekadda dhisaya aad buu ugu mahadsan yahay waxaa kaloo qalabkii awalba waddada soo waday oo dawladda baa isna yaalla iyo shaqaalaheedii intiiba waa joogaan annaguna haddaan nahay maamullada iyo maaragtay deegaanka dadka jooga waanu ka qayb qaadananaa wixii awoodaya wixii aan keeni karno wax la cuno iyo wax maaragtay intaba waa keenaynaa wixii awoodayada haddii alla idmo cid kasta oo wanaagga jecelna waxaan leenahay ka soo qayb gala waddadii waa socotaa dadkii awal maaragtay wax la bixi jiray oo khayrka jeclaa waxaan leenahay hawlka madaalooyinow ciddii wali waa hayaan wali shaqadii waa lagu jiraa waa socotaa waana insha Allah ilaahay idinka waxaan rajaynayaa inaysan naga kala go'in noo dhamaato ilaahay baa mahad iska leh waxaan leenahay ka soo qayb qaata aad iyo aad dhammaantiin u mahadsantihiin meeshaan waa Garacad Jariiban wadada meesha iyo mareer soonaheeda shaqay badan soo socotay oo ay soo waday kambaniga wadaagsan gaadiidka dawladda iyo shaqaalaheeda iyo shacabka reer Puntland oo reer Mudug oo iskaashanaya gaab wax yar galay saakalkan waa ka bilaabatay shaqada 12 kiiloomitir oo mareer iyo Garacad dhexdooda dhimanay ayaa saakalkan shaqadooda ku daahfuraynaa oo ay ka bilaabatay 12 kiiloomitir sida arkaysaan waxa isa kaashanaya kambaniga wadaagsan oo dekada qalabkiisa ayaa ku jira meesha oo shaqaynaya ka arkaysaan ah iyagoo caawinaya ama taageeraya wax yar oo maalmo ay shaqadu fadhido inay isgaarsiiyaan 12 kiiloomitir iyo kambanigii dawladda wadaagsan oo shaqadii dib ugu soo laabtay waxaan meesha oo dib ugu soo laabtay waxa weeye meeshaan waa asaas furan waxaan leenahay dadku in badan baan u baaqnay shaqada tan badan bay soo
taagan tahay dadka deegaanka ugu dakajo oo reer jiriibanna waxay ku soo aadan hadda baan u siday nooc kasta ha ahaato diyaar u yihiin shaqadiina sidaas ku socotaa halkaana saa ka bilaabatay waxay u bilaabatay si dardar leh waxaan rajaynaynaa in la isgaarsiin doono 12 kiiloomitir oo la mari waayay oo garacad jiro iyadoo ay kalifayso shaqada garacad ka socota awgeed gaadiidka waaweyn oo mara awgiis gacaddi ka yimid waddadii meeshaa laga mari waayey oo la fursan kari waayey in dib loo bilaabo kambanigii dekadda wadana uu dib u soo galo oo ay keenaan gaadiidkoodii cagafyadoodii wax kasta ay keenaan shaqaalahoodii aad baan ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqol bay mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celinaynaa intii hore uga qayb qaadatay oo dhaqaalahooda isgelisay waddadaas ha hore saasa dambayso waxaan ammaan u jeedin doonaa una mahad celin doonaa intii uga qayb qaadan doonta anaguna insha allah cod iyo caaqaba waxaan leenahay waa geli doonaan waana salaamayaa asalaamu calaykum